waxaan xaqiijinay waxa la wada inaysan doorasho ahayn xulashana ahayn inay tahay dikraato in lagu magacaabo xildhibaankii qoyska in dad aan dadkii kursiga lahayn ay ka shaqeeyaan kursigan iyo masiirkiisa waana nasiib darro waxaan is weydiinayaa aniga haddii processkan la iiga hor istaagayo inaan nidaamkii dowladdan ka horreysay la soo shaqeeyey maxaa lagu haystaa 40 kandideeda kale warka nuxurkiisii waxaa noo sheegay murashaxiintii kale iiga horreysay xalay waxaan dalbanay in hanaanka wax u socdaan ay saxsanayn saaka waxaan go'aansanay maadaama shuruucdii oo dhan la bedelay deegaan doorashada kursiga laga wareejiyey odayaashii la afduubay ergadii rasmiga ahayn la qoray wax walba la qalloociyey bal inaan derbiga ku geyno waxaan go'aansanay inaan isdiiwaan gelinno waxaana laga hor istaagay xaruntii waxaan damcnay inaan warqadii dambi la'aanta soo qaadanno waxaana lagu yiri amar kore oo xafiisyada dawladda ka yimid ayaa na faray inaan idin siinin taliyaha qaybta maxay dambi baarista ayaa nagu yiri wax aan idin la qaban karno ilaahay abuurta ma jirto amar naga sareeyaa yimid warqadaas aad arkaysaan waxaan qaatay 18 bish waxaa 18 bishan aan ku jirnay Febraayo CID waxay ii qortay inaan wax dambi lahayn maanta ay 23 bisha tahayna diidma qayaxan ayaa lagu hor istaagay inaan warqadii doorashada qaato waxa halka ka muuqata waxa la raadinayo ma aha doorasho annaguna waxaan xaqiijinay waxa la wada inaysan doorasho ahayn xulashana ahayn inay tahay dikraato in lagu magacaabo xildhibaankii qoyska in dad aan dadkii kursiga lahayn ay ka shaqeeyaan kursigan iyo masiirkiisa waana nasiib darro waxaan is weydiinayaa aniga haddii processkan la iiga hor istaagayo inaan nidaamkii dowladdan ka horreysay la soo shaqeeyey maxaa lagu haystaa 40 kandideeda kale maxaa 40 murashaxiin loogu ogolaan waayay inay ka qayb qaataan maadaama aysan xiriir toos ah la lahayn dowladdii ka horreysay mid ka midana uuba ahaaba dadkii u taagnaa kursigan xilligii doorashadiisii hore marka waa ayaan darro waa nasiib darro waxaan mar kale ku celinayaa weli waxbaa la sixi karaa weli qadafka iyo dhibaatada iyo culayska qoyska kursigan iskale lagu hayo waxbaa laga sixi karaa madaxda ha isku noqoto sharciga ha ilaaliso dastuurka ha u hoggaansanto kursigaanna waddadii saxdeed ha lagu soo celiyo